الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، walaalayaal waxaynu ka soo hadlaynaa khudbadii la xidhiidhay dadka muslimiinta ah iyo dowladooda iyo dalkooda siduu sharaf iyo awood ku yeelan karaa adduun iyo aakhirada, iyo siyaasadda wanaagsan ee islaamku uu la doonayo dadka ah, iyo riyaadada ama hogaaminta caalamka sida ay ku yeelan karaan. marba qayb baynu ka soo hadlaynay iyadoo la raacayo raadkii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam. mowduuceennan maanta wuxuu la xidhiidhaa isagoo kooban min asbaab annashri waaltamkiini fi lard, qayb ka mida sababaha lagu helo awoodda caalamkan iyo hogaamintiisa ee dadka muslimiinta ay ku yeelan karaan. tuu ilaahay la doonayo oo ah inay ummadda iyagu horseed iyo hogaamin u noqdaanay hanuuniyaan, sidee lagu heli karayaa? sababahaas way badan yihiin lagu heli karayo. waa qayb macnawiya iyo qayb maadiya. qayb macnawiya waxaynu uga jeednaa sababaha iimaaniga ah ee la xidhiidha awoodda iimaanka. qaybta kalena waa waxa adduunka la qabsanayo ee lagu horumarayo. mowduuceennan maanta wuxuu la xidhiidhaa alasbaab almacnawiya aw alquwa aliimaaniya, dadku awood iimaana inay yeeshaan oo ummadaha kale ay kaga duwan yihin. asbaabtaa 6 ka mida baynu ka soo qaadanaynaa. ta koobaad waxa weeye tatbiiqu sharci illaahi wannasru lidiini, dadku inay ku dhaqmaan diintoodan ilaahay u dooray subxaanahu wa tacaala. diin baa ilaahay inoo dooray, dadka aynu la dheernahay inaynaan saluugin, laakiin aynu ku dhaqanno oo sharcigu ina hogaamiyo oo aynu u hiilinana. waana shardiga ilaahay guusheenna uu ku xidhay, xaysu qaal in tansuru llaha yansurkum. ilaahay wuxuu uhi haddaa ilaahay u hiilisaan isaguna wuu idiin hiilin. dee isagaaba inoo hiilinaye hilimaadku inooga baahan yahay waa maxa? waa diintiisa iyo dadkiisa wanaagsan baynu isbarbar taagaynaa. walayansuranna allahu man yansuruh walayansuranna allahu man yansuru. ilaahay uu dhaaranaya, waan isku dhaartay baa ilaahay u leeya waan u hiilin doonaa qofka ii hiliya. ina allaha laqawiyun casiiz. ilaahay waa mid awooddiisu aada u badanto waxba soo celinayn. waata maanta aynu odhan karno way inagu yartahay. arrintaas way inagu yartaho dadku inay isu taagaan dowlad iyo shacaba diin ilaahay sidii loogu hiilin lahaa ee loogu howlgeli lahaa ma badna, way yartahay. waa meelaha laynaga qaniinay. arrinta labaad waxa weeye an nadlub alcizata washarafa bima acaza allahu bihi cibaadah. ilaahay ma qarinin, sharcigu ma qarinin sharafta iyo awoodda ilaahay meel buu geliyey oo aynay isaga addoommo u noqdaan, inay adeecaan oo ay caabudaan. xadiid saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu la hadlayaa ummadda, qofka mu'minku wacyigelinaya. wuxuu nebigu yidhi waclam ana sharafa almu'mini qiyaamahu billeyl. waxaad ogaataa qof yahow, sharafta qofka mu'minka iyo gobonnimadiisa waxay ku jirtaa inuu ilaahay addoon u noqdo habeenkii marka la seexda is-hortaago isagoo ilaahay caabudaya. wacizahu istignaahu can innaas. waclam ana cizahu istignaahu can innaas. waxaad ogaataa awooddiisuna inay ku jirto qofka mu'minka ah inuu ummadda ka kaaftoomo. cidda laga kaaftoomayo ugu horraysaana waa gaal iyo wuxuu caga ku qaato, oona dalkiisa iyo dunyadiisa iyo dhaqankiisa waxba uga baahanin ka kaaftoonto. arrinku nebigu inoo tilmaamaya waa kaa calayhi salaatu wasalaam isku fillaasho. ilaahay baynu u baahanay, inta kadibna iyagaa isku tashanaya dadka muslimiintu. arrinta saddexaad waxa weeye ijtimaacu kalimati lmuslimiin. dadka muslimiinta ay maadaama ehel yihiin oo isku abtirsiimo yihiin oo isku ummad yihiin inay ururaan. shisheeye baa ururayaynu arkayna, iyagoo qaarada ah, iyagoo dowlad ah, ayay urura leeyihiin mideeya iyo sharci mideeya iyo guddiyo mideeya. muslimkuna waa dab dhagax lagu dhuftay. marka islaamkooda wuxuu la doonayaa si ay awooddaa u yeeshaan inay ururaan. ilaahay baa wuxuu leeya walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum. ha murmina oo ha kala dhaqaajinina, awooddiinaa baabi'i. marka loo soo biyeysanayo iyaga unbaa la isku jabiyaa.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هكذا تجينا ذا الهو سيدي عذر كاس وقول عي قال هذا مسلمكم ملا عذر كاكلا تجي قال هذا عليه كسو يبسنينا أرنت أفراد حوي الزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة تتقول الدنيا ذي شوغان ويشقي سنيان ويعمريان لكن يول كود وهلك الضنبية النظر marka qofku intuu aakhiro iyo abaalmarinteeda iyo ishortaaga ilaahayba ilaawo inuu adduunyadan u waasho waa waxyaabaha laga adkaado dadka muslimiinta awoodii ay lahayn ay ku seegaan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo tirmidhi abi daawud iyo axmed ba ku sugan waxa uu ku leeyahay min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu yuushiku lumma man tadaaca calaykum waxaa laga yaabaa ummaduhu inay isugu kiin yeedhaan dalkiina isugu yeedhanayaan shidaalkiina macdantiina khayraadkiina dadkiina say u qaybsan lahaayeen ugu shaqaysan lahaayeen kamaa tadaaca alakalatu calaa qascatiha sida ay inta xeedhada wada cunaysaa isugu yeedhaan ay yidhaahdaan casuumadan kaalay wada cunee hebelow ee meel loogu soo ururo bal u fiirso kolba waddan bay bamba ku dhufanayaan marka la kala yaacay dadkiisu ay kala yaacaanba iyagu imanayaan shidaal baanu idiin qodaynaa dib u habayn baanu ku samaynaynaa annagaa idin dejinaynaa waxaa la guranayaa khayraadkooda asxaabtu way yaabeenoo waxaan may arki jirine su-aal bay nabiga weydiiyeenoo qaala qaa'ilun minhum wa min qilati yaa rasuula allah nin asxaabta ka midaba hadla wuxuu ihi maalintaa waxaas naguma dhici jirine ma farayaraan bay ku dhacaysa nebigu waxau ihi بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل فريالاني ما جرتي waa badanti aad ba u badanti waa bilyan iyo 2 bilyan oo wax laba marayaan 2,000 oo milyan boqol baa ka dhiman hadda ihsaayaadkii 2020 caalamul islaam marka tirakoobkooda la eego waa bilyan iyo 900 oo milyan 900 oo milyan wax la yaab la weeye maalinta waa badantii laakiin waxa la mid tahay xumbada daadka meel loogu soo hagaagaba aan lahayn caalamka miisaanba aan ka lahayn dabadhilif daba cararaya dad kale ah yuhuud baa maanta loo kala dheeraynaya oo carabtii kolba qol ay leeyihiin waan idin ictiraaf calankiina soo dhigtiyo safaaradiina daad xoor baa tiibu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa qeyb wax maqan oo ilaahay uu soo hordhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam ودارتي مركا النبي وحوري ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم والله إنه إلهي كسار الدون قلوب تقالدا عبسدي أيدين كعبسن الهايين قالكوا وآد بوقع عبسن شري مسلم مركا مير قبيني ميسان كالهايين مركا إذن كوا عبسن ما ينبو لهي أيو الله النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ودين صوت ترتميا ولا يغذفن الله في قلوبكم الوهن idinka qalbigiinana ilaahay wuxuu ku tuurayaa wahan marka asxaabi baa weydiiyo qaala qaa'ilun min as-saxaaba wama al-wahanu ya rasuul allah qaala hubbu dunya wa karahiyatu al-maut wahankaasi muxuu ahaa kaasaa wuxuu waa adduunyo jacayl iyo aakhira nacayb geeri inuu qofku ka carara adduunyada uu ku ururo islaatanaad ku noolaanaysa diidka saxiixa nabigu wuxuu inoo sawiray xaaladda aynu maanta ku sugannahay miisaankii ay muslimku lahaayeen lumiyey arrimahan uu nabigu ka warramayo waa kuway ku faani jireen saxaabadu khaalid ibnu waliid baa gaaladii bariga uu cid u dirayaayo markii hore isu dhiibi waayeen waxa uu leeyahay aatiikum biqowmin yuxibuuna almowta kamaa tuxibuuna alxayaa haddaad isa soo dhiibi weydo ama cashuur bixin weydo gaalow oo nimankii boqortooyadii weyneeda beershiyanka reer eeraan haystay buu la hadlayaa isagoo saxaraagaa soo maray oo ninkaa iska dee aan dhar badan sidana qorigiisa sida haddaad isdhiibi weyda buu waxaan kuula iman doonaa rag geerida u jecel sidaad adigu nolosha u jecesha waabay wada naxeenba dee nin dhimanaya maxaynu ku samaynaa bay idhaah miyaynu iska celin karayna arrinta shanaad waxa weeye alisticaanatu cala aldaalimiina bidducaa dadka muslimiinta ah inay ducada aada u adeegsadaan khaasatan ducaa ducafaa walmasaakiin dadka lagu tiriyo inaanay xeelad iyo quwad toona lahayn ducadooduu nebigu ku dagaalgeli jiray waxaa la isku dari jiray dadaal iyo duca allah
كأن دجال كقيب قلين الدعاء صهينا يا رسولكم صلى الله عليه وسلم دجال والبا دعاء سكب بلابا يا اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكشف كروباتنا waxaa lixaad oo ka mid ah sababaha aynu guusha ku helayna athabaatu calaa diin illaahi tacaala ilaahay diintiisa inay dadku ku sugnaadaan oo markay duufaanada iyo dabaylaha iyo shahawaadka iyo balaayooyinku jiraan ay diinta ku adkaystaan oo ogaadaan raasamaalkooda inay tahay walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriina wanabluwa akhbaarakum imtixaan baan idinku wadayaa baa ilaahay wuli jeer ay dadku kala baxaan kay diintu ka dhab tahay ka isyeelyeelaya waxaa la isweydiin karaa dee kol haddii addoomuhu ilaahay ba adeeceen subxaana wa tacaala oo dadkii ashahatay islaame isaga awliyadiisa ha rumeeyey ay yihiin muxuu u imtixaanayaa mar hadday ajiibeenba maxay imtixaanku muu ka daayo gaaladaa ka xoog badanaysa cudurraa lagu sallidaya cidhiidhi baa jiraya intay adduunyadan joogaan maxaa ka faa'iidaa talo imtixaanka ilaahay muu imtixaanka oo dhan ku ururiya gaalka dadka muslimiinta ana uu kaba daayo ilaa waabay ajiibeene hunaaka fawaa'id fi ibtilaa'i lmu'min faa'iidooyin badan bay leedahay imtixaankayna soo maraya wax kastoo dhibaato adduunyada ilaahay uu nagu imtixaanaya dhan walba ha ka yimaadeen faa'iidooyinkan tobanka ah baa ka mid a dhibka ku soo gaadhaya ama cadowga ha kaa soo gaadho ama shisheeye ama sokeeya nafta maalka ubadka waxaan aynu la kadeedanee faraha badan faa'iidooyin badan baa ku jira oo marka aad fahamto aanad sharaysanaynin ilaahay waad baryi inuu kaa dulqaado laakiin khayrka kugu jiraad garan waxaa ka mid a macrifatu rububiyati wa qahruha inaad awoodda ilaahay garato subxaana wa tacaala laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun addoomaha waxbaa la weydiiyaa laakiin ilaahay waxba lama weydiiye waa wax walba sameeye marka addoonku wuxuu ku qancayaa in wax wal oo ilaahay ka soo fulaba isagu xikmadu uga jeedo waxaa labaadoo ka mid a macrifatu dulli alcubuudiya addoonku itaaldarradiisa inuu garto oo inaad addoon daliilahoo miskiinahoo waxba iska fujin karayn wuxuu ilaahay la damco addoonnimadaadaad garanaysa الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون markay musiiba dhacdo gacmahaynu taagaynaa waxaynu leenahay annaga ilaahay baa iska kaayale aakhirana uu noo sii wadaaba maxaanu ku hadliba cid walibana waxay leedahay inay maamulato laguma qabsado waxaa ka mid ah al-ikhlaasu lilaahi subxaana dadku way iska warwareegaan oo istusnimadii ismaqashiinta ku badanoo darbadu markay cuskato ayay si fiican ilaahay ugu sugaan cibaadada iyo ducada فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حتى كي قال كهذا مركا أي وحلان إلهي أو بليو إلهي ياشي سيكلو كتجيا مركا أدونكو دعاء إنه صاف إلهي وقريقه وحتى كدوا مصيبة سو قاريس وحافراده كم إذا تضرع والدعاء دعاء إنه بدينا وقتك وقفك لبيو امتحاني هي وقتك كلا اسكو دعاء ما مركا كلا واسكو شقيسنه واسكو وديا مركا الله يلا wax kastaaba ha helaan ayuu rabbi bariga badinaya ilaahay xusuusanaya hadii kale waxaad moodaa inuu ilaahay ka maarmo waxa shanaadoo ka mid ah waxa shanaadoo ka mid ah asabru cala albalaa wa huwa muujibun limaxabati illaahi tacaala inaynu sabirno sabirku halkuu ka yimaadaa marka dhibku soo gaadho marka inuu addoonku sabrana ilaahay baa ku jeclaado jacaylka ilaahayna wax weyn wey wallahu yuxibu saabiriin ilaahay wuxuu leeyahay kuwa sabra rabbi wuu jecel yahay jacaylkiisa saad ku helaysaa waa inaad sabirto sabirkiina goormuu imanayaa waqtiga uu qofku dhibaato dareemaabuu sabirka ayaa sabirkii laga helayaa waxaa lixaadoo ka mid a tamxiisu dunuub dembiyada ayaa ilaahay u naga dhaafaya dadaalkan camalkaynu samaynayno keliya inaguma filaa kaa ilaahay wuu inaga dambi dhaafayaa darajuu inoogu dallacayaa laakiin dhibaatooyinka ina soo gaadhayaana dunuubta ayna saaran waxbay naga ridayaan marka labada dhinac baynu ka macaashayna axadu aclaami salaf baa wuxuu lahaa saalixiinteenii hore mid ka mid a xagga khayrkaan ururinayno naguma filla keliya cibaadadaanu samaynayno laakiin cidhiidhigana soo gaadhaya laftiisana ajri baan ku doonaynaa buu lahaa waxaa toddobaadoo ka mid a raxmatu ahli lbalaa'i wa musaacadatu idaa axasa lalam qofku markuu dhibaato ay soo gaadho dadka dhiban buu dareemaya hadday gaajo tahay iyo hadday cudur tahay iyo hadday cabsi tahay iyo
wadadka ma waxaana haystaad ka aamustayd buu odhanaya show waxaan ku helay wax weyn waxaan dadka helay ay la qaylinayaan wax weyn buu ahaa adiguna u gurmo markaa qofku dadka dhibku haysto wuxuu aada u dareemaa u deeqaa marka isagana dhibaato soo gaadho waxaa ka mid oo sideedaad macrifatu qadri nicami illaah lianna annicama tucrafu cinda fuqdaaniha inaad nicmada ilaahay weynaanteeda aada u garato marka imtixaanku soo gaadho unbaad odhanaysaa show wixii aad haystay wax weyn buu ahaa inta hore maba garanayo qof cindahu tacawudu cala nicma nicmadu iskaga bartay wax caadiya isaga ahayd mar alla markuu nicmada waayo ayuu garanayaa qiimaha iyo qadarkay lahayd markaasuu ilaahay ugu mahadnaqaya subxaanahu wa tacaala waxaa sagaalaad oo ka mida masaa'ibtu tamnacu alfakhra waalkibr qofku inuu afka taago oo uu kibro oo waxaanu ahayn isu qaato oo isqaadqaado waxyaabaha ka jafo waxaa ka mid a imtixaanka iyo ibtilaaga marka qofkaa ilaahay uu edbiyo imtixaanna uu soo mariyo ayuu dhulka ogolaanaya madaxnimo iyo maal iyo macrifo iyo midkuu doonaya ha ku kibrayo laakiin mar miyaad anag qof loo taag la-aayo markuu xanuunsado ducadana badinaya cibaadaysanaya ismiskiininaya waa edabta ilaahay uu addoomaha u sameeyo kolkuu imtixaanka marinayo kalaa ina alinsaana la yadqa an ra'aahu istaghnaa ilaahay baa wuxuu uhi mid gaali wuu kibray markuu qani noqday wamaa naqamuu ilaa an agnaahum allahu warasuuluhu min fadli ilaahay rasuulkiisu markay deeq siiyeen ee wax badan la siiyey ayay munaafiqiintu dadka ku kibreen walow basata allahu risqa licibaadihi labaqow fi lard dadka aad arkaysada ilaahay uhi aad qaar badani fuqarayin haddii wax la wada siin lahaa dal iyo dadba way kharibi lahayen oo dhan walba xumaantay u ridi lahaayeen marka waa imtixaana leh waxaa tobnaad oo ka mida faa'iidooyinka imtixaanka ku jira ina alcabda idaa radiya bilbalaa'i naala rida allah addoonku imtixaanka haddii aanu ka ooyin ee uu iskaga samro isagoo sababuhu ku caafimaadi lahaa ama sababuhu cadowga iskaga difaaci lahaa dabcan samaynaya markuu sabro wuxuu helayaa raali noqoshaha ilaahay inuu ilaahay ka raali noqdo waxaynu rooraynaana waa inuu ilaahay inaga raali noqdo imtixaanka aynu marayno markaynu ku sabirno ayaynu taa ku helaynaa ilaahay baa wuxuu yihi waridwaanu min allaahi akbar dalika huwa alfawz alcadiim raali noqoshaha ilaahay baa ka weynba jannada aan idiin soo sheegay jannada la helo waxa ka weyn inuu ilaahay kaa raali noqdo waana guul weyn oo la gaadho marka imtixaankan aad leedahay maxay waxaan inagu haystaa gaalku uu xamilaya qofku wuxuu muslimkii u xamilayaa waxaasoo faa'iidaa baa ku jira oo ogyahay haddana waxaa loo fasaxay hadduu cudur hayo inuu isdaweeyo cadow markuu soo weeraro inuu asbaabtii qaado uu isdifaaco dhib kastoo haysata wuu ku sabrayaa laakiin waa inuu sababtu isbeddel ku samayn lahaa inuu la yimaadana sharcigeenu waa amray oo uu fasaxay marka wax fara badan oo maanta aynu dareemayno ama aynu ka diiqadaysannahay oo duruufoo ayna haysta innagaana inaga ag fogeyn sidaa ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala intaasoo daliila uu ku sheegay shuruudihii nasriga iyo guusha iyo horumarka ku xidhnaa ee koway ka ahayd alquwa aliimaaniya awoodda macnawiga iyo iimaan sarreeya kiibaa daciifay marka waxaynu isugu baraarujinaynaa inaynu soo ceshanno si ilaahayna nasrigiisa inoo siiyo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث اللهم أسقنا الغيث اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة